markii oo la sameeyay maartay kiisaska badda ayaa la furfuray mid waliba maalintii qaranku furfuray meeshii sidaas ugu jireen markaas xoolaha la baaray moogtahay wax baaritaan u sameeyay go'aan geesinimo leh oo qaatay sanadihii uu dalkan burbur ku jiray Generaal Cabdi Maxamed Samatar ayuu ku badbaadiyay keedka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga dawladda Soomaaliya oo xilligan laga heli karo heshiis walba ay dawladda dhexe la gashay dalalka caalamka ee dukumeentiyo muhiim u ah dalka amniga haysta wasaaradda markii burbur ku dhacay kan jeelka markii burbur ku dhacay wixii dhacay waxaan Ilaahay naga madgeliyay in maartay ana kan nabad gallo waxaan ku guuleysanay maartay ay burburka dhicin waxaad arkaysaan maanta waa dukumeenti oo malaynayo maanta meel ku baxsaday inuu yar yahay meel ka baxsaday maartay ama waayo wasaaraddu maanta dukumeenti laga helaya inuu jirin baa filaya marka alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan isku daynay inaan qaran imaan doonaan ogeyn waxaan ogeyn ma garanaysaa in dhibaato laga bixi doono waxaan ogeyn inaan wadanka in waliba mas'uul ka saaran yahay caqabado badan ayaa soo wajahay intii uu gacanta ku hayay keedkan 1993kii ciidankii UNISOM ee Muqdisho dagaal kula galay ururka isbahaysiga SNA ayuu journaalka sheegay in ay halkan kala bixeen dhowr feel xilligii Ameerikaankii wixii maray noo soo daateero inta jabiyeen ba hataa fayl laga qaatay faylashan xilliga cadiid ba xarun ahayd meeshan marka waati kacdoon jiray oo isku dhacsanaayeen diyaaradahan loo yimid hameen waxbay qaateen meelaan ka qaateen oo faylash intay maartay jabiyeen diyaarada ku watay xamaado saxayana wax kama awootay wax tawiil bay iga dileen taas horta noogu dareed wax oo waliba dad Soomaaliyeed ah isleeyahay markaas Soomaaliyeed jirtay ah yaa hogaaminayay oo soo farmay alxamdulillah waxbay qaateen markaas fayl dhowr fayl qaateen Itoobiyaanka sidoo kale mar intii yimaad markii imaanayeen inay dagaal dhacaan halkan oo inta jeelkan ka xirtay waa la isku dayay markaas qoladii markaa joogtay wasaaradda amniga wasaaradda arrimaha gudaha amniga yaa la hadalnay Xuseen Cadiid buu haabal malayay markaas waxa uu sanado badan ku taamayay Generaal Cabdi Maxamed Samatar in uu mar qaranka uu ku baxsan doono keedkan waxaana dabcan sida uu sheegay laga helay feelal muhiim u ah dacwadda muranbadeedka Soomaaliya iyo Kenya qof baaba u qaabilsan wax kale hagaajinta nadaafadda iyo wax iyo magaras buufinta iyo wax baa ay qaabilsan oo sameeyaa kawar ahamiyadda asleedahay dalka aad buu ugu leeyahay xanaaneynta iyo baxnaaninta documentskii ma sha Allah ya lama sheegi karo la sheegi karo ma waxa yahay hadin maanta guri wal dhisan karaa laakiin document ma heli kartid document ma heli kartid waa guri laakiin waa guri dhisan kartaa waa lagu dhisi karaa ma la dhisan karaa laakiin document waa muhiim waa waxaan yaani ku xaminaynay ina maartay qaran noogu yimaado sidaad daawada aragtaan Generaal Cabdi Maxamed Samatar waxa uu halkan gacanta ku hayay muddo 30 sano inta uu burburka dalka ku jiray waxa uu baxnaaniyay oo ku soo samay dawladii dalka soo maray documentskii wasaaradda arrimaha dibadda oo aad muhiim u ah sida heshiisyadii dawladii dalka soo maray la galeen dalalka caalamka anigu dadaalkaygu wuxuu ahaa in qaranku u baxsado maantana waxaan ku faraxsanahay in maartay wasaaradda iyo madaxdii oo dhan iyo xukuumadda oo dhan og tahay waxaan qarankiina ay maartay ku wareejiyeen oo ay gacanta ku hayaan way jiraan muwaadiniin lamid ah generaalkan oo gacanta ku haya hantidii dalka uu lahaa sida keedkii radio Muqdisho oo sida la socoteen journal hore u hayay la dalacsiiyay waxaan u rajeynayaa cimri intaan ka wanaagsan in uu abaalku uu ku lahaa dalka generaalka uu ku heli doono dawladdan Haajir Abdulqaadir RTN TV Muqdisho